kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku guuleysatay horyaalkii ugu xamaasada badnaa qaaradda Yurub ee Premier League kadib markii ciyaar adag oo ay sameysay soo laabasho degdeg ah taasoo keentay in hal dhibac horyaalka uu qaaday kooxda Liverpool oo aad isugu dhawaayeen dhanka dhibcaha waana horyaalkii afraad ee macalinka wadanka u dhashay Spain ee Guardiola kula guuleystay Man City. kooxda Man City ayaa ciyaarta ku bilaabatay si weerar ah waxayna isku dayayaan inay gool dhaqso dhaliyaan si ay cadaadiska isaga dejiyaan balse intay ciyaarta sii socotay waxa soo muuqanaya weerarka ciyaartoyda gaar ahaan markii Itixaad laga dareemay in Liverpool ay heshay goolkii barbaraha maadaama kooxda martida ku ahayd garoonka Anfield ay la martay gool dhashay daqiiqadii saddexaad taasoo walwal badan ay gelisay macalin Klopp iyo ciyaartoydiisa. markaliya waxa isbedelay xaaladda garoonka Etihad Stadium kadib markii Man City ay noqotay mid murugaysan daqiiqadii 37 markii Kroos uu soo qaaday Lucas Digne uu madaxa ku dhaliyay daafaca midig Matt Cash taasoo la filinayay fursad dahabi ah oo lagu deeqay kooxda Liverpool oo markaas maraysay barbardhac hal iyo hal. ciyaarta waxa xamaasadeeda sii korortay ayaa waxa qaybtii hore lagu kala maray iyadoo Aston Villa hal iyo eber ku hogaaminaysa kooxda horyaalka difaacanaysa ee Man City. markii la isku soo noqday qaybtii labaad ee ciyaarta kooxda Man City ayaa xaaladda ku sii adkaatay kadib markii Aston Villa yeeshay goolkii labaad daqiiqadii 69 ee ciyaarta. Watkins ayaa kubadda u dhigay xidigii hore Liverpool Philippe Coutinho kaasoo kubadda kontrolay kahor inta uusan meel gees ah shabaqa ka tooganin. intaas kadib kooxda Man City ayaa gool soo ceshatay daqiiqadii 76 markii Raheem Sterling uu birta qaraacay iyadoo kubadda uu soo laabatay oo shabaqa dhigay guddoon. Man City ayaa goolka barbaraha heshay 2 daqiiqo kadib ayagoo 2 gool ku dhaliyay 2 daqiiqadood gudahooda waxaana u dhaliyay Rodrigo kaasoo nafta ku soo celiyay ciyaartoyda iyo taageerayaasha kooxda Man City. Man City ayaa la soo laabasho fantaasiga sameysay daqiiqadii 81 markii Kevin De Bruyne uu kubadda u dhigay guddoon kaasoo dhaliyay goolkiisii labaad halka Man City ay 3 gool ku dhalisay 5 daqiiqadood gudahooda. goolkii saddexaad ee dhaliyay guddoon ayayna Man City ku xaqiiqsatay 3 dhibcood iyagoo hal dhibc horyaalka Premier League uu qaaday Liverpool oo ayagana 3 ciyaar kaga badiyay kooxda Wolves oo martay ku ahayd garoonka Anfield. sanadkan koobka Premier League ayaa xiise gooni lahaa iyadoo si weyn loo dareemayay xifaaltanka macallimiinta u kala dhashay wadamada Spain iyo Jarmalka Pep Guardiola iyo Klopp. kooxda Liverpool ayaa hore ugu guuleysatay koobka kala Carling Cup iyo FA Cup ayadoo final taagan koobka xamaasada badan UEFA Champions League kaasoo 28 bishan kula ciyaaraysa magaalada Paris kooxda ku guuleysatay horyaalka wadanka Spain ee La Liga ee Real Madrid.